guddida ardayda jaamacadda Burco ayaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyay guddida ardayda jaamacadda Nugaal University ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana guddida ardayda jaamacadda Burco ay ardaydaas ay soo dhaweynayeen ka socday jaamacadda Nugaal ay kaga hortageen deegaanka Beeroosh ilaa 25 kiiloomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Burco ardayda jaamacadda Nugaal ee Laascaanood oo nagu soo booqday jaamacadda Burco anaga unionka jaamacadda Burco aad baan ugu faraxsanahay jaamacadda Burco University qaabka fiican iyo ardayda fiican iyo kaniisiin soo dhaweeyada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan maanta halkan kusoo dhaweynay walaalayaasha ka socda jaamacadda Nugaal in badan baan halka taageerada waxaan sugaynay inay noo imaadaan maasha Allah haday nabad noogu imaadaan waxaan soo dhawaad soo dhaweyntaasi kadib waxa ardayda jaamacadda Nugaal University ee soo gaaray magaalada Burco loo galbiyay dhinacaas iyo goobta ay ka degi lahaayeen magaalada Burco subaxnimadii hore saaka ay ardayda jaamacadda Nugaal waxay booqasho iyo isbarasho ay ku tageen xarunta guud ee jaamacadda Burco kuwaas oo booqasho ku tagay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay jaamacadda Burco waxaana guddida ardayda jaamacadda Burco ay ardaydii ka socotay jaamacadda Nugaal University ee booqashada ku yimi magaalada Burco ay si miisaan loogu soo dhaweeyeen maamulada kuuliyadaha jaamacadaha Burco ka kooban tahay qaybaha caafimaadka qaybta xanaanada xoolaha qaybta luqadaha qaybta ganacsiga qaybta dhaqaalaha iyo qaybta IT-ga iyo waliba qaybta horumarinta arrimaha bulshada ugu dambeyntiina waxa ardayda jaamacadda Nugaal iyo ardayda jaamacadda Burco ay si wada jira ay kulan uma qaateen gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Suleymaan Dirir Cabdi waxaana hadalka isaga daba maray gudoomiyaasha ardayda jaamacadda Nugaal iyo jaamacadda Burco guddida ardayda jaamacadda Nugaal waxaan ku soo dhaweynaa jaamacadda Burco iyo Burcaba iyo gobolka Togdheer waxaana soo dhawaada waxa timaadeen magaaladiina iyo jaamacadiina fikirkana waa fikir aad u fiicanina soo booqataan idinkoo student unionkiya I welcome all the students, especially the students from Nugaal University. Welcome to the University of Burco. Welcome to the English department, to the research department. I hope you will have a good time here. waxa weeye arday marka la qaadanayo in laga dhiso xagga base-ka markay ka soo baxaan dugsiyada sare oo maaragtay yihiin foundation kaasi marka waa in laabkoodii weyn dib loo celiyo maaragtay la soo mariyaa qaabkii science-ka haday tahay biology iyo haday tahay chemistry iyo hadii ay tahay maaragtay science-kii kale ahaa physics-ka marka laabkan waa laabka halka laga dhiso tiimka caynkaas lagu dhiso oo laabka science-ka ardayda laga soo dhiso markay yihiin base-ka waxa saaka farxad noo ah anaga markii hore si ogeyn ina idinku Nugaal University ka socotaan markii ugu soo booqataan waan jeclaa inaan idinka soo horeyno anagu asxaabtii badan oo aan leeyahay anigu shakhsiyan gaar ahaan dhaqaatiir oo halka joogan waan salaamay ka salaam just like to welcome all the students they're all very welcome it's with great joy to see people learning, developing, and the hope and the future that here is very evident for Somaliland. So we're all very welcome. dad isku wadani waxa weeye wadanka ma kala laha marka waan soo dhaweynaa waan ku faraxsanahay insha Allah anaguna waan idin doonaa marka inaad barataan waxa hareerihiina ka jira cid walba ay barato in dadku ay isdhex galaan iyo dabcan dunida dhan baa ka fikiraysa inay wax isku darsato marka dunidana inay wax isku darsato waxa ka horeeya dadka isku wadanka baa ka sii horeeya because waxa weeye duruufaha nolosha iyo resources-ka ama waxa weeye wixii la heli karo in la qaybsado ayaa kamid ah marka ay dadka isku dhow wax isku darsadaan ayay dhici kartaa in dadka isku wadanka ay dhici kartaa in inta ka sii marka horta waa mataaniintii waraadkeedu ugu horeeyay ee ogaada horta taasi waa daruuri waxaan share garaynaa oo qaybsanaa imika sida jaamacadaha xagga galbeedku wada u qaybsadaan oo mar hadii wadadu furan tahay oo jidku u furan yahay xoogaa magaalada nabadgelyadu ay hagaagto waxa dhici doonto bari dhow iyadoo burcinta laga shaqo tago lecture-ka laga soo bixiyo Laascaanood aad iyo aad baan u soo dhaweynaa ardayda jaamacadda Nugaal University oo nagu yimid jaamacad ma soo maray safar dheer iyo gudoomiyaha unionka oo ku mahadsantiin qaabkii fiicnaa ee wanaagsanaa kaliya laabtaa noo soo dhaweyseen ومحمد إبراهيم حسن محمد بريتش شبكة عالم قانونات نيوز برعو